caafimaadka carruurta waa shay muhiim ah guud ahaan bulshada oo idil samaqabka ama badqabka bulshada oo dhan. Ilma caafimaad qaba ayaa wuxuu noqon karaa qof weyn oo caafimaad qaba oo xiriir ayaa ka dhaxeeya qofka markuu yaraa caafimaad qabay marka uu weynaadana uu caafimaad qabo bulshadana wax ku soo kordhin kara. Xaqiijinta caafimaadka wanaagsan ee ubadka ma aha oo kaliya waajibaad damiiri ah iyo akhlaaqi ah waa sidoo kale waa maalgashi istiraatiiji ah. Sidaa darteed adduunku idil wuxuu ku kharash gareeyaa balaayiin doolar carruurtooda. Maraykanka oo kale midalan 600 oo bilyan oo dollar ayay ku bixiyaan oo u dhiganta 9% budgetka dawladda. Halka dalalka midowga Yurub ay ku bixiyaan 340 bilyan oo dollar oo u dhiganta 2.5 bilyan marka la eego budgetka dawladaha midowga Yurub. In la helo aasaas xooggan ee caafimaadka carruurta wuxuu horseedi karaa garasho iyo shucuur hagaagsan, koritaan jireed iyo yareynta cudurrada mustaqbalka fog. Nasiib darro waxaa xadidan dalkeena badqabka caafimaadka carruurta ay heli karaan. Waxaana ka mid ah sababaha aqoonta iyo fahamka loo haysto caafimaadka carruurta oo aad u hooseeya. Haddaba waxaan idin diyaarinay koorso caafimaadka carruurta oo soo koobaysa mawaadiic kala duwan oo aan uga hadli doono. Waxaana diiradda ku saari doonaa haddii Rabbi idmo muhiimadda ay leedahay caafimaadka carruurta, kobcinta iyo koritaanka carruurta, nafaqeynta iyo quudinta carruurta, xanuunada ugu badan ee carruurta ku dhici kara, gargaarka koowaad ee carruurta ama pediatric first aid wax loo yaqaano, nafsiyaadka carruurta iyo sida loola falgali karo, badbaadinta ilmaha iyo ka hortagga dhaawacyada, xuquuqda ay u leeyihiin in la siiyo adeeg caafimaad, siyaasadaha muhiimka u ah caafimaadka carruurta iyo qaybo kale oo muhiim ah oo koorsada aan ku soo gudbin doono haddii Rabbi idmo. Waxaan u diyaarinay qaab ay ka wada faa'iideysan karaan shaqaalaha caafimaad ee doonaya inay adeeg hufan ay u bixiyaan bulshada oo aan hubo in macluumaad muhiim ah aad ka dhexli karto koorsada. Waalidka oo mas'uuliyadda koowaad ay saaran tahay caafimaadka carruurta ahna safka hore oo loo baahan yahay si adeeg hagaagsan ilmaha ay u helaan caafimaadkoodana lagula dadaalo. Macallimiinta iyo doodayaasha caafimaad xuquuqda carruurta iyo waliba cid kasta oo daneynaysa caafimaadka carruurta. Ilma caafimaad qaba waa mustaqbalka iyo horumarka bulsho ee dal waliba. Waxaa iska diiwaan gelin kartaa adigoo raacaya linkiga hoose oo hoos ayaan idiin soo dhigi doonaa. Amaba lambarada hoose ayaad nagala soo xiriiri kartaa si lagu diiwaan geliyo. Soo dhawaada.